barakaatu maanta halka waxaan sugnay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidiintood ubadkiiyo waalidiintooda aan ubad laga soo dhaqan celiyay wadamada Yurubta oo loogu tala galay inay halkan dhaqankooda diintooda ay ku bartaan ayaa halkan boardina aan geynay si ay dhaqankooda diintooda bartaan waa hablo ilaa 15 jir ilaa 20 u dhaxeeya kadib muddo sidii ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhaway toolada 2 cisho ka hor maqalay inay carruurtii meeshii lagala baxay oo mid ka mid ayaa meesha ka baxsatay ayaa informationkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan carruurta lagu abuse gareeyaa oo maaragtay farxatay markaas gaala soo kaxaysatay iyo RRU sidii baa markaa ayay gaaladii ku yimaadeen RRU information qaldan ay u siisay kadibna kuwii kale oo dhan wada kaxaystay carruurteedii baan daba soconay oo nimid meeshan waxaan daba soconay wasaaradda arrimaha gudaha oo nimid halkana markaa wasiiradii maanta noogu shir noogu qabtay waxaana ugu yiraahdeen carruurtiinii waa sax laakiin jiisiyada kale wataan iyaga choice kale dad waaweyn weeyaan inay xagga ku noqonayaan inay xagga joogayaan afarta galabnimo ay nala ballameen carruurtiina tusaan marka afarta aynu balansanahay inaan carruurtii wali wadanka joogaan in kastoo la maqalay qaar in xagga lagu celiyay laba kamida intii kale halkan ay joogaan marka afarta ayaa nala tusaya carruurteedii inay joogaan halkan iyo in kale markaas xaqiiqada ogaan walaacaynkeeya ayaa arintaasi idinku haysaa idinka walaac weyn baan ugu haystaa maadaama waalidiinta dhahay carruurta dhalay dadkii xagga joogay kale waalidiinta kale carruurtii kalena dhibaato u keenaysaa maadaama la moodaya carruurtii inay argagixisay iyo waxaas ay u xiran yihiin oo maskaxda laga meedhayo wadankana waxay u tahay dhibaato anagana dhibaatay noo tahay carruurta ayaa iskale choice iyaga iskale iyagaana ogolaan kara iyagaana diidi kara carruurta ku xidhantay taasi maadaama jinsiyada kale teerka inanta habar bana waa 16 jir sanadkii 16 ku jirta boardingkaas loo keenay ceertoodii kalena way joogaan Hargeysa ku sugan yihiin anaga hadda wasiirku wuxuu noo sheegay carruurteeda inaa shalay la kaxeeyay gaalana faraha laga saaray iyagoo qof waalid loo sheegin wadan islaam anagoo joogna oo wadankeega joogna carruur la soo jiroonay inaa gaalada ay wadanka Hargeysa xukunto iyana muslimiinta xukunto in la kala cadeeyo barabna bis salaamu calaykum waxa jirta ina yaroon habar yar oo haynin iyada ma la kaxeeyay lana geeyay Denmark 12 ay ka degayso maxay ahayd toole debadu waa isku wada dhadhan maxaan ku rahaa hablahaas oo dhan isku wada mid bay ahaayeen marka anaga maxaan ku rahaa waxaan haysata dhibaato gaar ah oo inantayadii iyo maxaan ku rahaa gooni loo dhiibay ayaa anaga haysata salaamu calaykum